duhur wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee raadiyaha Simba. ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa maanta qalqalgeliyay amniga garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. ciidamo ka tirsan kuwa danab ayaa maanta deegaanka Camaare ee gobolka Mudug waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu soo qabtay saddex ganacsade iyo imaamkii masjidka deegaankaasi. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in lacag badan ay ku bixinayso sidii meesha looga saari lahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland. wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay gaaraan dalka Djibouti. mas'uuliyiinta maxkamadda sare ee gobolka Galgaduud ayaa shaaca ka qaaday inaysan wax xiriir la lahayn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka amniga Soomaaliya ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya. al-shabaab ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay magacyada raggii fuliyay weerarkii degmada Awdhigil ee gobolka Shabeellada Hoose. taliska booliiska gobolka Bari ayaa maanta Boosaaso waxay ku soo bandhigeen qamri ugu tirada badnaa oo laga soo qabtay magaaladaasi. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba duhurnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah faahfaahinno hor leh waxay ka soo baxayaan qaraxyo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kaabul iyo dab kumanaan qof guryo la'aan dhigay oo ka kacay dalka Bangladesh. markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo axada 18 bisha 8 ee Agoosto sanada 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee raadiyaha Simba iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa maanta deegaanka Camaare oo ka tirsan gobolka Mudug waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu soo qabtay saddex ganacsade iyo imaamkii waa mu'addamkii masjidkaas deegaankaasi ku yaala. wararka ugu dambeeyay waxa ay noo faahfaahinaya Maxamed Cabdullaahi. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo lagu baacsanayo dad lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug. ciidamadan ayaa deegaanka Camaare ee gobolka Mudug qaybta ay ka arrimisay Galmudug waxay ka sameeyeen howlgalka waxa ayna ku soo qabteen tiro dad ah oo ay ku jiraan ganacsato iyo mu'addin masjid. gudoomiyaha deegaanka Camaare ugu magacaaban dowlad goboleedka Galmudug Yuusuf Salaad Maxamed oo la hadlay warbaahinta Simba ayaa sheegay inuusan ka warqabin howlgalkan waxauna tilmaamay inuu garanayo 3 nin oo ganacsato iyo mu'addin masjid oo lagu xiray howlgalka. gudoomiyaha ayaa sheegay in isaga iyo odayaasha deegaanka ay la kulmeen taliyaha wata ciidamadaas howlgalka sameeyay isla markaana uu ka biyadiiday siideynta raggaas tuhunka lagu xiray. gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in ciidamadaas oo 6 gaari watay ay qalqal iyo cabsi geliyeen dadka deegaanka Camaara ku nool kuwaas oo ku jira jawi nabadeed bilihii la soo dhaafay. annaga horta waxa waaye sida aan kuugu sheegay qafladda magaalada lagu qabtay dadna waa la qabtay haddaan mas'uuliyiintii iyo odayaashii nahana waxaan isku daynay inaan nimankii la hadalno adiga waqti dheer kadib waxaa nala tusay nin lagu tilmaamayo inuu ahaa taliyihii ciidanka. ninkaas baan aan la hadalnay ninkaabaa waxaan ku nidinay how deegaan nabdoon oo nabad ah oon dhibka jirin yaa saakay waxa weeye cabsi gelin iyo xirxir iyo dhibaato aad u geysateen. waxa weeye waxaan ka rabnaa maadaama aan mas'uuliyiintii iyo odayaashii deegaankii aan nahay dadkan masaakiinta oo xirxirteen oo waxa weeye shacabka ah inaad maaragtay soo deysaan wixii kaloo aad ku socotaan aad nagala hadashaan ma garan. waan gartay muxuu idinkugu jawaabay marka taliyuhu? ninkii marka anagu qoladaadkiina ma aanan dhihin asna qola nooma sheegin. waxa weeye ciidan oo fara badan oo ilaa 6 baabuur wato oo tignika ah ayay ahaayeen. ninkii marka waxa weeye wuxuu yidhi anagu howlgal iyo barnaamijyaan u nimid.
gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ragga la xiray 2 ka mid ah ay ahaayeen ganacsato heer dhexaad ah halkan ninka kalena uu ahaa nin mu'adin ka ah masjid ku yaala deegaankaas gudoomiyuhu waxa uu xaqiijiyeen ciidamadan ay raggan usoo kaxeeyeen dhanka gobolka Galgaduud balse uusan wax badan ka ogeyn halka sida saxda ah loola aaday oo ciidamadu ay ku hayaan dadkaasi horta anagu haddaan si qeexan u sheegno 2 nin ganacsaday ahaayeen oo dadka caadiga iska oo waliba ganacsatada waaweyn ma aysan ahayn ganacsatada heerka yaryar ay ahaayeen ninna nin mu'adin oo masjidka mu'adin xilli dheer ka ahaayu ahaa nimankaas marka sidaas bay ahaayeen anagu sidaas baan ku naqaanay dadka caadiga ee camaarad degan nimankaasi ay ahaayeen marka waxa weeye aan u laabtay arrintii ninkii marka sidaa markuu nagu yidhi way ku soo celinayaa war waxaa dhacday ninkii inuusan ugu soo laabanin ma garan kabacdii marka waxay kadib markaan sugaynay asagoo kolonyadiisi iyo ciidankiisii wata ayay wadadaas galbeedka ay ku baxeen ma garan ganacsadayaalku 2 nin oo ganacsadayaalka heerka yaryar ay ahaayeen iyo ninka mu'adinkaa 3 nin ay magaalada ka qaadeen sidaa qafladaah ay ku qaadeen wax war ah oo aan hore uga haynana ma jirin howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan isku dhaf lagu sameeyay ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa federaalka ah amniga deegaanada Galmudugna lagu wareejiyay ciidamada heer federaal ah waa mahadsantahay maxamed wasiirka amniga dowladda Soomaaliya maanta waxa uu shaqadii ka joojiyay agaasimihii guud ee wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya sida ay warkan ku faahfaahinayso Sahra Ibraahim Yuusuf qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa shaqo joojin loogu sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraalkan ka soo baxay wasaaradda ayaa u qornaa sida tan ku socota Yuusuf Cali Maxamed ku socota Maxamed Jaamac ku socota dhammaan hay'adaha dawladda ku socota wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku socota guddiga shaqaalaha rayidka dawladda og wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga og wasiiru dowlaha wasaaradda amniga og ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ujeedo shaqo joojin kadib markii aan qiimeynay baahida loo qabo dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda amniga gudaha kadib markii aan tixgelinay ahmiyadda agaasimaha guud ee uu leeyahay dhismaha iyo hanaanka shaqo ee wasaaradda kadib markii aan tixgelinay go'aanka golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baabiyay jagada xogayaha joogtada ee wasaaradda waxaan laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha sanadda 2019 shaqo joojin ku sameynay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha mudane Yuusuf Cali Maxamed waxaana xilka si ku meel gaar ah ugu magacaabnay mudane Axmed Cabdi Kooshin sidoo kale go'aanka golaha wasiirada ma aysan jirin jagada xogayaha joogtada ee wasaaradda amniga ee gudaha haddaba dhammaan hay'adaha amniga waxaa si xushmad leh loogu codsanayaa in ay si buuxda ula shaqeeyaan siihayaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Cabdi Kooshin ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gadana al-Shabaab maanta waxay kala wareegeen deegaano horle oo hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gado hani maxamed cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa ciidamada milatariga Soomaaliya qaybta 43aad ayaa waxa ay howlgallo ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Baardheere ee gobolka Gado ciidamada ayaa howlgalka waxay si gaar ah uga sameeyeen deegaanada Cabdi Afeey iyo sidoo kale Baar Macalin oo dhinaca galbeed kaga beegan degmada Baardheere ee gobolka Gado taliyaha ururka qaybta 49aad ee guutada 10aad Dhame Cali Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaanadaas oo in muddo ay maamulayeen sidoo kale shacabka ku dhaqan gobolka Gado ayuu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Gado meesha hadda ka hadlaynay aan joogno sidaad u aragtaanba waajiida hore ee Cabdi Afeey kooxaha nabadiidka ee caadeystay inay dhiga muslimiinta ay daadiyaan iyo hantida shacabka Soomaaliyeed barnaystay oo ku caawin qabateenayay mataqaana dhaqaale ahaan iyo tabac intaba iyo isdhaxmarka bulshada intaba caqabad ku ahaa sidaad ogtiin baan hore uga saarnay tuulada Cali Xareed iyo mataqaana daar oo loo aag bedelay ee la geeyay Cabdi Afeey yaa baarihii 11 aroornimo ee saakeeyay aan ku galnay waan uga gacan saaraynaa
howlgallada waa howlgallo qorshaysan ee loogu talagalay nabadiidka mataqaanaa in looga gacan sarreeya mid baahsan ma ahayn wuxuu ahaa mid qarsoodi ah looguna talagalay cadowga inuusan helin xogtaada inay dowladooda ay garab istaagaan lana garab istaagaan xogaha iyo mataqaanaa informationada cadowga iyo hiiliho intaba annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiganaga u hurno una dhimana dowladnimada haddii allah wadala ogolaado sidaad og tahayba waxaa noo qorshaysan in la xoreeyo jubbooyinka sida madaxda naga sarreysa ay ugu shaaciyeen horey u shaaciyeen in la xoreeyo jubbooyinka iyo meelaha ay ku dambeeyaan nabadiidka oo ah saldhigyada u ah in laga xoreeyo sidaa darteed annaga taliskanaga waa garbaari guutada ay degan tahay waddada isku xirta garbaari iyo baar dheer ayaan saaka ka howlgalnay waan uga gacan sarraynaa insha allahu tacaala wixii dhimanna waa soo afjari doonaa hadalka taliyaha ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliya ay howlgallo ka sameeyeen deegaanada Cabdi Afey iyo sidoo kale Baar Macalin oo markaa hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gado. dowladda Soomaaliyana waxaa la sheegay in lacaga aad u fara badan ay ku bixinayso sidii meesha looga saari lahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland. sida warkan ku faahfaahinayso ayaan Nuur Xirsi. iyadoo muddooyinkii dambe xaaladda Kismaayo ay ahayd mid aad markaasi u kacsan isla markaana soo tarayeen cabashooyinka loo jeedinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Daahir Cabdiqaadir oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda Simba ayaa wuxuu sheegay inuu eedeynayo madaxda dowladda ee Soomaaliya dhanka kale siyaasiga wuxuu sheegay arrimaha qasan ee ka taagan magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland in laga fangareynayo xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana ay fangareynayaan madaxda dalka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Kheyre siyaasi Daahir Cabdiqaadir oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waa maadan tahay dadaalada Puntland sheegatay ay ka mid yihiin xisbiga gruubkiisa waxaan shaki ku jirin in aan dowladda dhexe ee Farmaajo iyo Kheyre ay hordoodayaan marka haddii marka ay wax ku dhaafaan aadaan kooyay qaadanayaan haddana systemka hadda jira oo ay maanta ugu egtahay xilhayntiisii waxa ay diyaar u yihiin systemka bedela inay xilka ku wareejiyaan marka ayadoo aan system bedela la diyaarinna cidda xilka haynaysaa waa iyaga waa Axmed iyo gruubkiisa wixii waxaa ka baxsan cidii la timaadana wixii meesha ka yimaada oo negative ah mas-uuliyadeeda ayaa iskale ayaana ka shaqeeyey marka lama wadaagto eedda Farmaajo iyo Xasan Kheyre sababtoo ah ayaga ayaa ka shaqeynaya in meeshaas maamuuxuma ay ka timaado in lagu kala tago in dowlad la-aana ay timaado wadada galmudug inay raacdo sababta waxaa ku cadaynaysa waxayba yidhaahdeenba dib u heshiisiin ayay u baahan tahay maamulka Jubbaland sida galmudug oo kaleeto marka waa boor isku qarin iyo wuxuu waa ku hadalkani siyaasiga ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dhawaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland taasi oo lagu madalsan yahay 21 bishani aynu ku guda jirno mas-uuliyiinta maxkamadda sare ee gobolka Galgaduud waxay shaaca ka qaadeen inaysan wax xiriira kala dhaxayn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisataar Xaaji ayaa warkan faahfaahinaya maxamed guuleed Kaynaan oo ka mid ah xubnaha garsoorka gobolka Galgaduud oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee garsoorka gobolka Galgaduud aysan ka dhaxaynin wax wada shaqeynaa isaga oo sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Galgaduud ay ka jirtay garsoor la'aan waxa uu sidoo kale sheegay in kiisaska cuslaada oo maxkamadda gobolka Galgaduud ay wax ka qaban weyso inay u gudbiyaan odayaasha dhaqanka isagoo tilmaamay in oday dhaqameedku ay xaliyaan kiisaska ku adkaada maxkamadda gobolka Galgaduud maya federaalka xariiba marihim ana waan joognaa meesha la yidhaahdo ismaamul goboleed isaga laftiisa la gaarsiin waxba madaxweyne mid kasta oo ahaa afar madaxweynaha soo markaa u malaynayaa mid kasta oo ahaaba looga gudbin mana qabto kamana war qabo warna uma hayo madaxweyne kasta danihiisu iska haystaa marka maxaan u gudbinaa midii oo
maamul goboleedka madaxweynaheeda iyo balada gudbin oo ka warqabin oo xataa aan maaragtay la socon gudbin kale marka male waxay u laabataa markii la xukumo kadib dhaqan iyo odayaal iyo wax sidaasa oo ama bulshada wax isiiya shabaguna waa qabaa haddii xukunka xoola in la isiiyo waa qabaa shabaguna marka halkaas aadama ka baxay ma xiriir mali wax xiriir malihin taas gobolkan kama wajisa sideedaba kama wajiso gobolkan oo ciidamada jooga maxkamad ma haystaan galmudug guuleed kaynaan oo sii hadlayay ayaa intaa ku daray in maxaabiista lagu soo eedeeyo dambiyada culus iyo kuwa fudud in la isugu geeyo hal qol isagoo xusay in arrintaasi aysan ku wanaagsanayn dhaqanka iyo diinta islaamka ugu dambeyn waxa uu sheegay in eedeysanayaasha lagu soo xiro xabsiyada gobolka galgaduud aysan helin xuquuqdii loogu talagalay intaa xiriir waa leenahay laakiin dib baa ka jira xabsi weyne kuma yaal ninkii mashiidyada iyo ninkii tacsiirta ahaa iyo ninkii dhaqan toosinta ahaa hal qol baa la isugu geeyaa cayaana ku yaala isaguna ma anfacayo sharci-darrada taasaba ka mida iyo ilaahay dinkiisa aan aysan ogoleyn qaynuunka iyo diinta midna qofku meeshiisa in lagu xiro xuquuq u yeelanayaa qofku markii qofku xuquuq u yeelanayaa dembiile marka xataa uu yahay ama eedaysana yahay meeshaana maba taal in baxsiya iyo xabsi iyo asluub iyo meel la wareegtaa iyo xeer raaliye iyo madaxweyne iyo midna ma jirto loogu hayo gobolka miyaalin kaas waxau ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee gobolka galgaduud islamarkaana waxa uu ka warbixinaya qaabka uu shaqeeyo garsoorka gobolka galgaduud isagoo sheegay in wax wada shaqeyn aysan kala dhexayn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna u dambeeyey warkii uu faahfaahinayey cabdisataar xaaji xarakada al-shabaabna waxay soo bandhigeen magacyada iyo qabiilada ay ka soo jeedaan raggii fuliye weerarkii ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose magacyada raggani waxaa ka mid ahaa maxamed deeq ibraahim aadan iyo sidoo kale nuur ibraahim xasan gaabow waxayna shabaab ku sheegeen in labadaa nin ay ahaayeen raggii fuliyey weerarkii ismidaaminta ahaa oo lagu qaaday xero ciidan oo ku taala duleedka degmada awdhiigle taliska booliiska gobolka bari ayaa maanta boosaaso waxay ku soo bandhigeen qamrigii ugu tirada badnaa oo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi hani maxamed cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa ciidamada booliiska gobolka bari ayaa maalmihii dambe waxay howlgallo ka sameynayeen magaalada boosaaso ee gobolka bari howlgalkani ay sameeyeen ciidamada ayaa waxay kusoo qabteen qamri aada u fara badan iyadoona ay ka heleen qamrigani xaafada lagu magacaabo raf iyo raaxo oo ka tirsan magaalada boosaaso ee gobolka bari waxayna maanta booliiska gobolka bari ay kusoo bandhigeen duleedka magaalada boosaaso qamrigani ay soo qabteen sidoo kale waxaa intaa wararka ay kusii darayaan in 2 shaqsi oo rag ah ay sidoo kale booliiska ay qabteen islamarkaana ay ku qabteen qamriga waxaana la filayaa in qamrigaasi lagu gubo isla gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaad maqlaysaan dhegaystayaal warka duhurnimo ee raadiyaha simba markana akhbaaraadka dibadda faahfaahin horle waxay ka soo baxayaan qaraxyo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ugu yaraan 68 ruux way ku dhinteen 180 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii bam uu ku qarxay hool ay ka socotay xaflad aroos oo ku yaala magaalada Kabul ee caasimada wadanka Afghanistan goobjoogayaal warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qaraxan uu ahaa qarax lagu sii diyaariyay hoolka ay xafladu ka socotay waxaana xafladda oo meel dhaxamaraysa hal mar la arkay qaraxan iyo kala yaac qarax ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii xalay wuxuuna galaabtay nolosha in ka badan 68 ruux 183 kalena way ku dhaawacmeen ma jirto ilaa hadda koox sheegatay ururka Taliban oo qaraxyo ka geysta caasimada dalka Afghanistan ee Kabulna way iska fogeeyeen mintidiinta sunniga ah ee Taliban iyo kooxaha khilaafada islaamka ayaa si joogto ah u beegsada shiicada laga tirada badan yahay ee Afghanistan iyo Pakistan ugu dambeyntiina dab kumanaan qof guryo la'aan dhigay waxa uu ka kacay Bangladesh dab weyn oo ka kacay xaafadda ay dad badan ku sugan yihiin oo ku taala magaalada Dhaka ee caasimada wadanka Bangladesh ayaa waxa uu guri la'aan dhigay in ka badan 50,000 oo ruux oo halkaasi ku nool ku dhawaad 15 guri ayuu markaasi dabkan baabiiyay xaafadda lagu magacaabo Jalisti oo ka tirsan dalka Bangladesh gaar ahaan caasimada Dhaka ayaa waxa la soo warinayaa in dadku ay joogaan meel banaana
taas oo si aad ah ay dowladdu ugu raajoogto sidii loo soo afjari lahaa dabkaasi. afhayeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay inay la tacaalayeen dabkan oo weli markaasi ka horaya qaybo badan oo ka mid a duleedka caasimada dalka Bangladesh ee Dhaka.